السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايدن سلام ميل والبوات شوكتان وعبدي محمود قلع يا برنامج كيدن كي منشري معاد كوالد نمو وحو بدنا كهلا أرمها قويسكي عرورت لكن مرارك قاركودنا وحو كسو قاتا أرمها السياسة دي بلشدة وهي السياسة دي بلشدة دينو هقاقان وحيابها كالودن وهقاقيان ولا ليال رنتي وحا aad iga yaabiyey hadal uu ku hadlay ninka la yiraahdo Faysal Ali Waraabe. Faysal marar badan ayuu iga yaabiyey runtii wax Faysal ku hadla markasta uu hadlo Faysal yaani wax loo riyaaqo ama macna sameeya ama loo arko magaranaysaa nin mas'uul wax ka yimid oo danaynaya maslaxada dadka iyo danta iyo magaranaysaa keenaya waxyaabo mira dhal noqon kara ama qaadaya tilaabo wax horumarin kara ama wax isu soo dhaweynaya ma aha. لكن دراد مدة عن أركي وحوية تاسو وحكة لأيضو بدنا ولا جاي بين السوشيال ميديا هكو أركان فيصل يسقى وشر كخد بينيا إنه حسبي سحابة عن مرينا أو تدفر بدن تشوغان حرق بدن ومضحى أو حسبي سكتر سنة تدفع مالية تدفر بدن هالك هاي تشوغان أيها نين هاللي مالها هذا الكيسيبو قنصدي ما على سن wuxuuna ku hadlay wax aad looga yaabay oo aan ahayn nin madaxa ama nin doonaya inuu wax hogaamiyo ama inuu talada dadka maaragtay ku yeesho kaalin ku yeesho inuu ku hadlo. Faysal wuxuu yiri sidaan ogahay inaad wada aragteen ama aad maqasheenba midgaanka halka fadhiya wax aan ka soo kala war meesha ka saara wax la yaab la weeyo runtii Faysal u geeyay inuu waxa ku hadlo waxaas ma waxa bomba maxay macnaheedu yahay yani ninka la hadlay isagu ma doodi kara miya wax ma oran kara miyaanay meeshu ahayn wax guud oo dadka ka dhaxay oo dood wanaag jiro miyaanay jirin si kale oo hadii xataa uu Faysal diiday waxa ninkaas ku hadlay Faysal Ali Waraabe ayaan u jeedaa haduu diiday ninkaas wuxuu ku hadlay ama uu cuntumin si kale oo uga falceliyo ama uga jawaabo waxaanoo dhan waxay ku soo ururayaan dagaal iyo cay iyo waxaan macna lahayn mid kale marka Faysal iyo dadka la midka ah oo dadka hormuudka isaga dhigaya markay sida dib jirka oo kale u hadlaan dib jirka sidiisoo kale markay u hadlaan maxay arrimahan u noqonayaan dib jirku bini aadanimo waa qofina la mid ah laakiin duruufaha uu ku jiro ayaa runtii ka dhigaya inuu siyaabo aan habooneen u dhaqmo duruufo qalafsan buu ku jiraa meel xun buu seexdaa waxa laga yaabaa cunto inaanu helin in dadku aanay u naxariisan inuu inta dagaal ku jiro marka wuxuu ku dhaqaaqo ama wax kasta oo sameeyaba waa wax aan ku daasho mudnayn waa waxyaabaha la doonayo in la yareeyo aan haboonayn Faysal marka tuu ku dhaqaaqo waa tii dib jirko kale yani dib jirku wuxuu rabo isaga hadlaa laakiin ma aha nin madaxa ama nin doonayo inuu dad hogaamiyo ama cod ku yeesho ma garanaysaa arrimahooda ama taladooda inuu sidaas oo kale u hadlo nin doonaya inuu dadka isu soo jiido oo kasbado dadkoo dhan ma garanaysaa kalsoonidooda iyo rabitaankooda inuu kasbado inuu saa u hadlo ma aha maxay marka arrimahan u dhacayaan haddii dadkii inoogu maaragtay hormuudka aynu u maleynayna ay sidaa u dhaqmaan maxay bulshadeena noqonaysaa arrimaha waa in la isweydiiyo wax kale oo Faysal u furan ama qofka Soomaaliyeed u furan oo aan ka ahayn inuu ama caytamo ama dagaalamo miyaanay jirin markii waxyaabo aynu isku qabanno waxyaabo danta guud khusay aynu isku qabanno ama xataa waxyaabo shakhsi aynu isku qabanno wax dagaal iyo cay iyo aflagaado dhaafsiisan miyayna keeni karin maxay tahay mashaakilkan maxay tahay hadii hadda ragga maaragtay hormuudka aynu haysanaa ay saa u dhaqmaan dadkeena caadiga ah maxay noqonayaan ya waxa la yiri geel duqdii durdurisay aarankii maxaad moodaa marka dadkii lagu dayan lahaa oo dhaqanka wanaagsan iyo sabirka iyo dulqaadka iyo waxeerinta iyo dadkii laga sugayay haday iyagii sidii dib jirkii oo kale u dhaqmaan maxay duruufahan noqonayaan yani waxaan waa inaynu isweydiino bulsho ahaan waxa kale muhiim oo mudan in la fahmo in Faysal markuu sida u hadlay ay ka muuqato karti xumo xaqiisa ka muuqata
يعني فكرة بان ku jirin sidoo arrimaha waxa liya ma keeni karo fikrad ma keeni karo luqadii uu ku hadli lahaa inuu qaabo si hagaagsan oo dadka u hadlo wax ku qanciyo ma keeni karo waa inuu noqdo maaragtay falcelin khariman oo dagaal iyo caynkaas inta uu buu yaqaanaa waana in badan oo Soomaalida hormuud u ah ayaa inta kaliya taqaana wax kala aqoon waana mashaakil bulsho weeye waa mashaakil siyaasadeed weeye waxa kaloo muhiim oo iyana laga maarmaana in runtii aynu xisaabta ku daro marka aynu u aragno qof mas'uul inuu sida u dhaqmayo sidaas sidayna doonaynay maxaa ina la gudboon inaga dadweynaha ama dadka kale oo la shaqeynaya miyaanay mudnayn qofka sida u dhaqmaya in la yiraahdo raali lahow ma mudid inaad hogaamisid iyo inaad halkaan joogtid sidaanu doonayna dadku miyaanay xaq u lahayn inay tallaabo qaadaan ila in wax la saxa la doonaya sidee wax u saxaynaa marka haddii wax walba aynu ahaan raahno sacabka u tunno yani waa mashaakil weeye waa inaynu ka fikirno raahno khad asba la sheegaa red line red line waa inaynu yeelano oo ay macnaheedu muxuu yahay inagu halkan aynu u jeedna waxa weeye in xumaanta iyo samuhu inoo kala soocan yihiin ya in gafka iyo ma garanaysaa gargaaridu inoo kala soocan yihiin in dhibaateynta iyo ma garanaysaa dheeftarku ama dheeftu inoo kala soocan yihiin waa in waxyaabo badan inoo kala soocan wixii ina dhaawacaya iyo wixii ina gargaaraya waa in inoo kala soocan yihiin Faisal marka anigu ma qabo nin fayowba inuu yahay marar badan baa arka isagoo leh usha uu sito WhatsApp-ka iyo waxa Ilaahay baan isku hadalnaa caynka waa luway anigu waxaan malay arrimahaas waa luway laakiin Soomaalida u taala inay runtii ka fikiraan oo ay qofkii aan dantooda ka shaqeynayn ay yiraahdaan ka joog adigu hawsha malihida ka joog taas waa mid labaad maxay tahay madaxtinimada qofku markuu madax noqdo horta muxuu u jeedaa macnihiisu muxuu yahay ma haynu dadka ka sareeyo ma haynu dadka aflagaateeyo ma haynu dadka dhibaateeyo madax waxa loo noqdaa horta in madax la noqdo waa sharaf dadku markay ku doortaan waa ku sharfiyaan waxbay kugu tuhmayaan in wax intooda kala aanay kari karin aad kari karto marka waa ku sharfiyaan waa ku karaameeyeen horta qofku waa inuu fahmo mid labaad madaxtinimadu wax weeye qofku waa inuu isbedel keeno waa inuu nolosha dadka iyo duruufahooda hagaajiyo haddii aadan duruufaha iyo magaraysaa danta dadka aadan hagaajin karin madaxtinimadaadu waxa ma istaahshidin inaad halkaa joogto waxaan rajeynayaa dadka Soomaaliyeed inay baraarug inuu galo oo haddii aynu doonayno midnimo iyo dawladnimo iyo magaranaysaa hoggaan wanaagsan dadka aan mudnayn in magaranaysaa runtii aan loo dhiibin haddii loo dhiibo oo la arko inaanay sidii la filayay aan ahayna intii laga qaado la yiraahdo ma istaahshid waxa kaloo muhiim ah inaynu diidno dadku markay caytamaan in la dhaleeceeyo in idaacaduhu hadlaan in ma garanaysaa dadku hadlaan in aqoonyahanku hadlaan oo ay yiraahdaan sidaasi ma aha si haboon iyo si aanu doonayno ma amsnaanta iyo sacabka mashaakilka sii badanaysa waa halis weeye halis arrintaas walaalayaal intaasaan kusoo gabagabeynaya caawa waa Cabdi Maxamuud Qala barnaamijkii idinka iman jiray Machadka Waalidnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.